السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة عاتية channel كداوني سنة وحذيفة فلوكس كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصبته وعن كعصرنا أنا سبسكرايب نصرته فيديو قدرت كيشيد لايك نصرته ودنا سنتين صاحبيا صار هرنا وبرتين با شيكوين كيني مالك دويد وحينو صار ده حاجة شيء سؤال هيد عن برنامج كيني ودم بيه last week عن دوبني وحوها محاسبة إن فرينكا عن با محاسبة كلا تجا لما نياش عنك فيديو مركان دوبني كدب وانا يرهني إن فكر كنا نلسو وداعا سي عندك وصوب بندقنو بل واحد فيرين دونا إن feedback dadku ay ka bixiyeen amba qaabkii dadku uga soo falceliyeen iyo fikir ahaan dadkii say la noqotay baan bal wada fiirin doonaa waxaan hal akhrin doonaa inta qof yani muu ka wada gaarno laakiin inta ka gaarsiin karno bal fikirkooda dadkii nala soo wadaagay baan in la sii wadaagi doonaa haddii la yiraahdo aan ku bilowno horta marka hore waxaan ku bilaabi doonaa team keep going magaranaysaa wada salaamaya dhamaantood keep going walaal go forward hore u soco wadna santiin intii naasiba waxaan ma wada akhrin karayna macnaha waxaan sameyn doonaa dhowr qof fikrada ka soo qabsada ayaan bal ka soo qaban doonaa fikradooda waxaan ugu horeysiin doonaa xagga hoosaan ka soo bilaabaynaa waxaan soo qabanayaa waa macalinkeenu weeyaan waa wiil kamida dhalinyarta channelkan wax badan ka qabata oo walaalkay ama saaxiibkay Yaasiin Mahdi Maxamuud thank you walaal sida wanaagsan loo garab taaganayna waan ka warqabnaa aad baa ugu mahadsan tahay fikirkiisu nala soo wadaagay isaga ayaa ka bilaabi doonaa wuxuu yiri qof walba qaab ku soo qoran oo akhriya marka saa la socdo insha Allah in guurku wuxuu ku waaraa daacadnimada inta badan lamaanayaasha soo bandhiga isjacaylkooda amba noloshooda qoyska ee ku habooneyd in iyaga ay ku koobnaato waa kuwa halis u ah buu yiri il iyo maxaa la yiraahdaa il iyo xasad warun isha iyo xasadku waa waxyaabaha ugu daran weeyaan ee ibnaadanka inta badan saameynta badan ku yeesha wuxuu yiri oo ku soo koobay qoraalkiisa oo soo koobaya noloshu waxay ku haboon tahay buu yiri in yani waxyaabii adigu aad ku habooneyd inaad xaaskaaga la wadaagto inaad adigu يعني private ka dhigataan waad ku maasan tahay fikirkaaga wanaagsan Yaasiin Mahdi thank you brother miski baan ku xigsiinayna qof miski la yiraahdo waa gabadh waxay tiri ugu horeyn horta calaf baa jira labada qof isguursada wayna kala tagaan wayna isguursadaan laba qof oo kasta oo isjecelna waxay leeyihiin cadow saddexeeya waxay tiri gabadha fikirkeedu waa muhiim waxay tiri waxa saddexeeya in cadow saddexaad qof dad walba isjecel labadii lamaane isjecel ba qof saddexeeyo cadow yaa jira balse bay tiri youtuberada iyo dadka caanka waxa qof saddexaad u abay tiri social media oo xasid ku ah waana run way jiraan lamaanayaal badan oo waxa jira fikirro wanaagsan intay soo bandhigaan wax wanaagsan intay soo bandhigaan dhinaca kale loo fasirto kadibna xagga xumaanta la aado oo wax dhaca wad maasan tahay walaalo fikirkaaga waa muhiim waan qaadanay fikirkaaga waxaan ku xigsiin doonaa qofka saddexaad wuxuu yiri waa Maxamed thank you brother waa my classmate aad baa maasan tahay saaxib assalaamu calaykum salaan kadib king wadi ani kulli waxay ila tahay waxa sababi kara cadow fara badan baa jira kaasoo juhdi iyo waqtiba ku bixinaya sidii ay labada qof u kala tagi lahaayeen ya way dhici kartaa taa laftigeedu wayna jirtaa waa ku maasan tahay aad baa maasan tahay saaxib fikirkaaga wanaagsan asxaabteeda kale ma wada magacaabaya Hawa thank you Susan thank you horosoco team horosoco aad baa maasantiin dhamaantiin thank you guys macnaheedu ma ahayn uma jaajasayo wax weeyaan waad ku maasantiin sida wanaagsan iniga laftigiina aad uga qayb qaadanaysaan waxaan soo qabanayaa qofkii kale qofka xigi doona waa Garaad Mukhtaar thank you boss aad baa maasantahay sida wanaagsan aad uga soo qayb qaadatay bal fikirkiisa wada fiirin doonaa waa qof shakhsi kamid ah shakhsiyada channelkeena iyaga laftigooda fikrada muhiimka ka siiya intaanan inii soo galin intaanan soo hor fadhiisan dadka waxyaabadan naga soo caawiyo kamid yahay thank you boss wuxuu yiraahdaa waxay ila tahay laba arrimood midda koobaad oo ah marka horeba xiriirkooda iyo guurkooda kuma saleysnayn mid ay ugu tala galeen mustaqbal fog tan labaadna wuu yiri waa xagga diinta oo diinta iyo daacadnimada ayaa ku yar intooda badan siiba kuwa fanaaniinta fikir ahaan intaas ay la tahay wuxuu sii raaciyay bal aan fiirino jawaabta dadka kale
waa loo baahnaa barnaamijkan aad samaysay boss, hore halkaa ka soco. Thank you boss, aad baa umahadsantahay fikirkaaga wanaagsan iyo dhiirigelintaadu shidaal ayay noo tahay. Thank you boss. qofka xigaan eegana Cabdiqani hore u soco. Thank you. walaalkeena kalena wuxuu yidhi sayga daacad baa la yidhahdaa. Thank you walaal, adiga laftigaagu waa wiil walaalkeena, isaga laftigiisu channelka ku xidhan. wuxuu yidhi assalaamu calaykum, maasha allah walaalkaygu qaali, aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan eed noogu soo jeedisay fikirkaaga. Thank you walaal, adiga laftigaaga waad ku mahadsantahay ka qayb qaadashada aad kasoo qayb qaadatay. su-aasha haddaan isku daya inaan ka jawaabo, uu yidhi waxaa keeni kara commentigiisu aad buu dheeryahay, marka waxaan isku dayaa inaan bal netka kasoo yarqa qabto waxyaaba muhiimka. kow buu yidhi waxaa sababa kalsooni darro. laba buu yidhi waxa waaye in midba midka kale uusan u naxariisan. waa pointi. ka saddexaadna wuxuu yidhi waxaa keeni karo in xiisuhu ka dhamaada dhexdooda. Thank you brother, aad baa ugu mahadsantahay sida wanaagsan oo ka qayb qaadatay. Samson Mohamed baa ku xigta, waxay tiri kuwaas noloshoodaba dhabka ma aysan ahayn ee dadka unbay istusayeen si ay views u helaan. way dhacdaa dad saasana way jiraan oo feega oo nolosha qoyska dadka kale nacsiya. inagu waxaan macambaarinayna cid macaayana cid kale ma tilmaamayna, keliya waxaan tusaynaa dadkan wadadan mari doona inay bal iska ilaaliyaan. waxaa dhici karta dad badan oo hadda daawanaya oosan maanta caan ahayn beri inay caan noqon doonaan, marka dadka laftigooda waa anfacaysaa fikir ahaan. isku dayaan insha allah inay sida ugu wanaagsan nolosha qoysku inay private tahay oo lagu manage gareyn karo qaybta xagga yacni behind the camera in lagu manage gareyn karo nolosha. taasina waa muhiim. waad ku mahadsantahay walaashii qaali. nawiye walaashii nawaal waxay tiri iyaduna sidaad sheegtay weeyaan, waxaa inta badan waxaa mar walba qarsoon ayuu khayrku ku jiraa. badanaa dadka caanka waxay isku guursadaan inay caan sii noqdaan. waa fikir fiican, aad baa umahadsantahay walaashii qaali. amiir cabdimucalim wuxuu yidhi isaguna haddii aan isku dayo waxay ila tahay markasta ay bulshada ugu caansan ay noqdaan buu yidhi waxaa imaado khaladaad badan, xushmad la-aan, isfahan waa inta badan dhacda. cilada ugu weynina waa isla weynida buu yidhi lamaanahaas dhexdooda gala. waa mahadsantahay brother, aad baa umahadsantahay si wanaagsan baad uga qayb qaadatay, waana fikir wanaagsan runtii. isha bini-aadanka ayaa ku dhacday. gabadha hodan baa la yidhahdaa, waxay tiri isha bini-aadanka ayaa ku dhacday sababtoo ah dad badan waxaa jira nolosha ay soo bandhigayaan aanan haysan. gabadhaasi fikir fiican bay ka hadashay, waa runteed wayna dhacdaa. waxaan soo qaban doonaa wiil youtuber oo kasoo qayb qaatay isaguna cali dhaqan la yidhahdo. Thank you brother, aad baa ugu mahadsantahay sida wanaagsan uga soo qayb qaadatay. wuxuu yidhi saaxiib qaali, noloshu waxay ku qurux badan tahay qarsoodida, waxaa laga yaabaa inay il tahay. Thank you boss, aad baa ugu mahadsantahay sida wanaagsan aad uga nooga soo qayb qaadatay. fikirkaaguna waxaan aaminsanahay inuu dad badan caawin doono. aad baa ugu mahadsantahay. waxaan ku xigsiin doonaa videoga inuu naga dheeraado uma baahnin. dhowr qof oo kale soo qaban doonaa. waxaan soo qabanayaa wasiiratu nisaa walaashii qaali. aad baa ugu mahadsantahay, adiga laftiga si wanaagsan baa channelka uga garab taagan tahay. xudayfe walaalo waxay ila muuqataa bay tiri waqtiga la joogo in la isu guursado wax caannimo raadis la yidhaahdo oon jacayl iyo dano qoys la iskumaba guursaday tiri. fikirkayga oo keliya waaye. Thank you walaalo, keep going. qudhaydu su-aashan waan isweydiiyey, waaba adiga dhexdashay. aad baa umahadsantahay walaashii qaali sida wanaagsan uga qayb qaadatay. waana fikir, waana arrin jirta oo xaqiiqa oo la arkay inta badan practically loo arkay inay dadku caanimiyo waxa isku raadiyaan, balse ay dadkeenii bulshadii ku xidhneyd baa ku marin haboobday oo aad ula yaaban. yani waxaan aad baa umahadsantahay. guddoon cabdi habaday qaali, aad baa umahadsantahay. habadayna waxay tiri waxaan u malayni xasadka mustaqbalka la arko. waxaan u malaynayaa markastoo la arko wanaagga jacaylka labada qof dadka xun baa bata. markaas in laba qarsado ayaa wanaagsan bay tiri. waa ku mahadsantahay haba si wanaagsan weyaan. waxaan soo qaban doonaa saaxiibkay walaalkay weyaan Mustafa Hira. Thank you brother. wuxuu yidhi sababtoo ah saaxiib marka horeba labadan caan isu guursadeen, caannimadooda unbaa isu keentay ee jacayl iskuma keenin. Thank you brother. gabadh kale waxay leedahay halkan waxay ila tahay bay tiri in ay rabto gabadhu, way kaftamaysaa gabadha saan malaynaya, waxay tiri in ay gabadhii soo bandhigta ninkeeda laga shukaansado weeyaan bay tiri, isagana naag shukaansada aan u dirno. waa mahadsantahay walaal, waxba shukaansan mayno. Thank you, aad baad noogu qosisay. saaxiibkii kale isaguna wuxuu yidhi cabdiraxmaan abiib. Thank you abdire.
تيم وينو سلام سريع صاحب وصاحبك عبد الرحمن نانتسا thank you صاحب أبو ما سنتاي سيدو نكسين نلو سعودي نقوم هالعليا إن حوادي إلهي أمرك إلهي بجبيان بيتر استغفر وما سنتاي والله الذي لفتياجو إن وأنا فكر كاغر أبو ما سنتاي أكرم وحيري إن صاحبك أكرم thank you brother الذي لفتياجو sababta xiisihii ayaa dhamaaday markii horeba waxaa la isu guursaday xiise kaliya ah taliya waa ma santahay saaxiib waa si wanaagsan waxaan marnaba ilaaweyn team si fiican uga soo qayb qaatay waa team Ajajina team la yiraahdo aad u maasan team Ajajina adiga laftiga aad baan ku salaamaya thank you so much si wanaagsan baad channelkan u garab taagan tahay aad baan ugu maasan tahay team Ajajina iyo team keep going aad baan ugu maasan team Nuur Abdi Nuur wiil yiraahdo wuxuu yiri noloshu always waxay ku qurux badan tahay private from team Ajajina thank you brother Ato Asensio thank you walaalkay ayaan thank you Faizo thank you guys aboo wada maasantiin intaan ilaawina macnaheedu maaha intaan dhaafay inaan nacabahay waxa weeyaan kaliya waxaan rabay inaan la wadaago dhowr kamida muhiim ah inaan kulli soo wada qaadano dhammaantiin wada jecelahay familkayga tiin asxaabtayda tiin aad baa ugu maasantiin sidoo wanaagsan uga soo qayb qaadateen su'aalahan iyo jawaabahan aan akhriyayna waxay wali daba taagan yihiin videogii hore ee kaga hadlaynay maxaa sababa furiinka lamaanayaasha caanka aad baad ugu maasantiin sidoo wanaagsan uga soo qayb qaateen